dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxo taabacsan maamulkii horay looga takhalusay ee Ahlusunna wal Jameeca ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. dagaalkan oo xalay bilowday ayaa waxa uu istaagay maanta galinkii dambe halkaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 5 ruux oo dhinacyadii dagaalamayay. ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dagaalkan ka qayb qaateen kadib markii kooxo taabacsan maamulka Ahlusunna wal Jameeca ay isku dayeen in ay xoog ku dhaafaan isbaara ciidamadu ay halkaasi ku lahaayeen, iyadoo dagaalkan gudaha la isula galay xarunta maamulka Ahlusunna wal Jameeca saldhigga u ah NG, iyadoo Sheekh Shaakir oo saaka la hadlay idaacadda BBC-da uu sheegay in weerar ay ku soo qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale magaalada Gurceel oo iyaduna ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa maanta oo Jimcaha ka dhacay dagaal u dhaxeeya kooxo taabacsan maamulka Ahlusunna wal Jameeca iyo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, iyadoo halka ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Ahlusunna wal Jameeca. dagaalkan u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna wal Jameeca ayaa waxa uu sii xoogaystay maanta galinkii dambe kadib markii ciidamada gorgor ee sida gaarka u tababaran ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo dageen garoonka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo ay dagaalka qayb ka noqdeen ciidamada horay ay isugu dhaceen Ahlusunna wal Jameeca ayaa ahaa ciidamada Haramcad oo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay magaalada Dhuusamareeb. lama oga sida ay xaalku noqon doono iyo dagaalkan u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka iyo maamulka Ahlusunna wal Jameeca. hase ahaatee Galmudug ayaa haatan u qaybsan 3 madaxweyne iyada oo qaybna dawladdu ay baritaaraysa qaybana ay iskood isu magacaabeen.